Digniin. Ma ku soo gaadhay fariintan? Haddii ay ku soo gaadhay, ha dhayalsan. 1. Al-shabaab ayaa isku diyaarinaya in ay howlgallo culus ka fuliyaan magaalada Muqdisho. Waxay diyaarisay qaraxyo la xiriira 2 gaari oo ay ku jiraan dhinac cantar iyo gaari caasi ah, kuwaasi oo lagu diyaariyey Shabeellaha Hoose. Goobaha la filayo ayaa ah inta u dhaxaysa isgoyska Saybiyaano iyo kiiloomitir 4. Sidoo kale waxa ay howlgallo qaraxyo ah ka wadaan wasaaradaha arrimaha gudaha ama wasaaradda diinta iyo awqaafta, kaasi oo ku bilaaban doona gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyey. 2. Al-shabaab ayaa sidoo kale miinooyin ku aasay degmooyinka Hiliwaa, Dayniile, Kaxda iyo Ceelasha Biyaha. Sidoo kale, qaraxyo ismiidaamin ah ayaa lagu qaadi doonaa isgoysyada shaqaalaha sida gaarka ah loo leeyahay ee ku sugan goobaha laga qaado City Balay, Master Faruto, Mansoor Hotel, International Restaurant. 3. Waxay kaloo baabuur ku qarxin doonaan dhabarka dambe ee suuqa Xayaat, gaar ahaan Kafee Carbeed ilaa Daarta Deero ee Taleex ilaa Xaaji Baasto. Fadlan la wadaag dadka kale laga yaabaa inay caawiso dad oo noloshooda badbaadiso. Digniintan waxaan ka soo qaadanay Cabdi Dhaanto Facebookiisa, wuxuuna sheegay in fariimahan loo diray shaqaalaha caalamiga ah ee ku sugan Muqdisho.